wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay qorshayaasha wasaaradda iyo howlaha shuruucda marista wadooyinka oo ay soo saartay wasaaradda kaasi oo la doonayay in lagu dhaqo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. wasaaradda gaadiidka ayaa tilmaantay inay jiraan dadaalo iyo horumaro ay ka samaysay sidii ay u xakameyn lahayd gaadiidka xamuulka ah ee caqabad ku ah isu socodka gaadiidka iyo dadka, waxayna sheegtay in arintaasi ay meel wanaagsan ay ka gaareen sidii loo yareyn lahaa saameynta gaadiidkaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal Gaabow oo waraysi siiyay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay shuruucda wasaaradda ay soo saartay. waxaan soo saarnay xeerka ku dhaqanka dib u xaqiijinta shuruucda gaadiidka dhulka oo ku soo baxay bulletin official ama faafinta rasmiga ah ee dawladda. xeerkaas wuxuu qeexayaa shuruucda u tiilay gaadiidka inuu lagu dhaqmo waxyaabaha oo wadciga ama marxaladdu ay keentana oo hadda aan lagu dhex jirana xeer ahaan ayaan ugu darnay inta laga xaqiijinayo dhamaystirka sharciga wadamarista. agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa ka hadlay gaadiidka xamuulka iyo qorshaha ay ugu talagaleen in lagu maareeyo. runtii way sameeyeen dawladda gaadiidka xamuulka. maanta waxa waaye liistigaas ayaa oo ka kooban 2,549 baabuur oo ka bilowda number 1 ilaa kan ugu dambeeya dekeda ay xamuulka ka qaadaan. waa diiwaan gashan yihiin oo waxay ka diiwaan gashan yihiin dawladdaas iyo wasaaraddaba. number dhaafi karana ma jiro. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ayaa sheegay qorshaha ay ugu talagaleen in lagu dhaqo gaadiidka dawladda oo aan lahayn taarikada gaadaada. dawladda gaadiidkeeda weli lama sameyn. saan kuu sheegaba waxay u baahan tahay gaadiidka dawladda nafteeda in la sameeyo shuruuc in dib loogu noqdo. maxaa yeelay dalka Soomaaliya shuruucdii loo sameeyey ee hore u jirtay waxay qeexaysaa gaadiidka hay-adaha dawladdu kaliya inay gaadiid dawladeed wada karaan. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.